wax kale liiwaa lugta liiga gooyo waxaan lugta aaga gooyo oo takhtar ku geeyo lagu geeyo liigeeyo ayaa u baahanahay walaashay iyo walaalkeena daawad doono muuqaalkan waxa laga codsanayaa inay noo sii share gareeyaan followna noo dhahaan soo gaaro boqolaal qofood oo caawiso wiilkan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa muddo 3 sano ah ku xanuunsanaya Cabdi Maxamed oo ah wiil 15 sano jir ah Cabdi ayaa dhaawac uu ka soo gaaray xilli uu ku sugnaa beer reerihiisu ay lahaayeen isla markaana meel ay biyo ka guureen ayuu xayawaan ka dhex qaniinay wixii xilliga ka dambeeyay Cabdi Maxamed waxa uu ahaa mid dareemaya xanuun daran oo maalinta ka dambeysay aad u sii darnaanayay reerkiisa oo aanan awoodin inay ka bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya in la geeyo goobo caafimaad waxa booqday Cabdilcaziz Maxamuud Muude si xanuunka ula qaybsado wiilkaasi reerkiisa hooyo Faadumo oo ay u ah dhibane Cabdi Maxamed ayaa ka sheekeynaysa xaaladda caafimaad ee wiilkeeda dhanka kale dadka Soomaaliyeed waxay ka codsatay in la caawiyo shayaan ahay ayay disbaanahay shabeelaan ka keenay webi shabeelaan laga keenay qalqalle wasaan ku noqtay 2 sano saan yahay walaalaha na arkay oo noo jeedo ama na arki doono sanadka kule 3 uu fadhiya cunugan waa cunug hadda soo baxaayo oo cid wax barashadiisii iyo wax cid ku tari lahay waana ka waa fadhiya walaalaha waxa ka codsanaya inay isoo kaalmeeyaan oo ilmahaas wiilkaas ay soo daryeelaan saas darteed lambarkayga waa furaha 968 Cabdilcaziz Maxamuud Muude oo istaagay soo bandhigada dhibane Cabdi Maxamed qof waliba oo haysta waxa uu ugu baaqay inuu ka qayb qaato sidii caafimaad loo raadin lahaa wiilkani Bismillahirrahmanirrahiim ilaahay ama hadda iska leh waxaan joognaa galabta mid ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne halkaan aan galabta ugu soo booqnay wiil yar oo nala wadaaga sheekadiisa oo xanuunsanay oo muddo 3 sano ku dhawaad ah ku xanuunsanay magaalada Beledweyne markiisii horena ahay wiil iska qoys danyar ah oo ku noolay Itoobiya muddo 3 sano ku xanuunsanay magaalada Beledweyne aan helin wax daryeel ah iyo wax caafimaad ah sheekada wiilku waxana la wadaagay dad Soomaaliyeed ayaa la wadaagay markii noo soo gudbiyeen waan imaanay halkan xaafada saan u bandhigno walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed lugto sheekada wiilkaas ayaydiis oo noo warantay waxay noo sheegtay inuu dhaawac ka soo gaaray meel qalqali ah oo ku socday qalqaliga kadibna halkaasi umaleys laga qaniinay lugtina dhaawac sii noqotay muddo 3 sano hadda heer ay gaartay inay qalo